بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبائي في الله، ودراسينتي كتاب كاني 100 حديث للحفظ براء بقول حديث، وحن سوقعني فدقي تضبي طبنات أما طبني تضبات أيان سوقعني. waxaanu ka bilaabi doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala darsigeena xadiidka 81 can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaal laa ta'kuluu bishimaali faina ashayطaana ya'kulu bishimaal. rawaahu muslim. xadiidkani waxaa soo saaraya imaamu muslim min xadiidi jaabir bni cabdillaah radia allahu tacaala canhuma. jaabir wuxuu leeyahay nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa ta'kuluu bishimaali, bidixda ha ku cunina, fa ina ashayطaana shayطaanka ayaa ya'kulu bishimaali bidixda wax ku cuna. adaab iyo akhlaaq iyo qudwa ku dayasho nabi moxamed lagaga daynayo sala allah alay wasalam. xataa shareecadeenu waxba kama tegin, qaabka wax loo cuno iyo qaabka wax loo cabo iyo gacanta wax lagu cunayo iyo gacanta wax lagu cabayo ayay shareecadeenu saytahay u kala dhigdhigtay. saa daraadeed laa ta'kuluu bishimaal, bidixda ha ku cunina hana ku cabina, fa ina shayطaana ya'kulu bishimaal, shayطaanka ayaa bidixda waa ku cuna. duruustii aanu soo dhaafnay dersi ka mid a ayaanu ku sharxnay oo aanu nidhi iska daa caruurta yaryar waalidkii weynaabaad arkaysa asagoo bidixda ku cunaya ku cabaya. idan ilmuhu sidee ayuu tarbiyadan u qaadanaya? markuu iskuulka iyo gaalada la joogo waxaan bidixda ahayn maba ku cunaan, waayo riwaayo kalea tilmaamaysa shaydaanka iyo gaalada bidixda ku cuna. waaba caado u fiirsada, bidixday ku cunaan, muslimkuna midigtuu ku cunaa oo ku cabaa. ka waran ilmihii markuu iskuulka ka imaado hadduu aabbihi hooyadiina arka ayagoo bidixdan cuntada ku cunay. xadiidka 82 can jaabir, walidaalika baa nabigeena sal lla alay slam wiilkii ula dardaarmoo yidhi wiil yahow midigta ku cun, uu ku yidhi wiil yahow midigta ku cun. xadiidka 82 can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama qaal man laqiya allaha laa yushriku bihi shay'a dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala annaar. rawaahu muslim. xadiidkan imaamu muslim baa soo saaraya min xadiidi jaabir bni cabdillaah radia allahu tacaala canh. jaabir wuxuu leeyahay nabi moxamed wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man laqiya allah, qofka ilaahay la kulma maalinta qiyaamo wey. man laqiya allaha, qofka alla la kulma, laa yushriku bihi shay'a, asagoon ilaahay cibaadadiisa wax kale ogu darin, tawxiid maxdi ah ayuu wataa qofkani. ilaahay tabaaraka wa tacaala wax kale lama caabudin oo wax kale lama baryin oo cidan asaga ahayn ma tala saaranin. ilaahay buu xuquuqdiisii uu siiyey, xuquuqdu alla lahaa, xuquuqdii uu alla lahaa oo cibaado ahayd ayuu khaas ooga dhigay. wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiin, alaa lilahi diinu lkhaalis, waman yuslim wajhahu ila allahi wahuwa muxsin. ikhlaasku waa inaad ilaahay cibaadada gooni oga dhigtaa. idan man laqiya allaha laa yushriku bihi shay'a, qofka maalinta qiyaama rabbi la kulma asagoon cibaadadiisa wax kale oogu darin, natiijada uu helaya waa maxay? midhaha uu guranayo waa maxay? dakhala aljanna ayuu nabigu yiri sal ly slam, qofkaasi jannaduu gelaya. lianna jannada ilaahay waa ka xarimay, sida haddaan arki doonno xadiidka qaybtiisa dambe. qof ilaahay wax kale la caabuday ama wax kale la wadaajiyey tabaaraka wa tacaala, ilaahay jannada waa ka xarimay.
قرآن كان أيضا بدن بكل شيء لكن أنقدر ومن لقيه قفك إلهي لكلمة يشرك به شيئا أصبو إلهي وحكى لا عابدي أو وحكى لا قرب وضي أو عدك لا بريي أو عدك لا تلصارتي أو عدك لا إلي وحقبانا يسوه سبحانك يا رب يعني عدك لا أي أودي الله لها أي عدك لا أيوسي أما قرد أما أصنام أما قبور واحد أنتانو أما أدوية وحير رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نكا مراه وقرنا يوام حي دخل النار قف كان نار تقول يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وأليلي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قالوا مركا ليه نبي عيسى وإله أي نبي عيسى يلي معها إله لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم نبي عيسى وحويري يا بني إسرائيل له غير بنو إسرائيل ورأى لك لقي عابدا ربي نأها عابدا محايا لي قفك إلهي وحكى لله عابدا ولو النبي بالله كدقيه ولو ملك بالله كدقيه ولو ولي بالله كدقيه قفك إلهي عد كستو عزيا لا عابدا اسكدا وحكى لقريه نجحاني اسكدا فقد حرم الله عليه الجنة إلهي جنة وكحرم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار نعوذ بالله من النار حديث سيديتا يصدح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم حديث كإمام مسلم بصوصارية من حديث جابر بن عبد الله جابر وحليه رسول كان عليه الصلاة والسلام وحيري إن بين الرجل قفك إيا وبين الشرك كفر يقال لماذا وبين الشرك والكفر شرك يقال لماذا قفك إيا الشرك يقال لماذا وحاول حياء وكليه ترك الصلاة إنه الصلاة دي كتوه سبحانك يا رب بمعنى قفك إنه قال لما كدعه أو كفر كدعه شيء كليه كورتاغن waa salaada haduu salaada ka tago shirkiga gaalnimadii buu ku dhacaya daliil anna tarik as-salah qofka tarik as-salaadka inuu kaafir yahay tarik as-salaadku waliba alladhi lam yusalli qat qofka aan waligi tukanin waa kaafir way laakiin qofka mar tukanaya marra ka tagaya way mid kale isku khilaafay alladhi yusalli bil munasabat bil ahya bi ramadan كاسة علماء اسكو خلافه ما مسلم با ما كافر با لكن سكة استبا هالنقطة هذه دولة إسلام جرتو أو شرع إسلام ككل رغميسا أما كافر هالنقضو أما مسلم هالنقضة عاصي هذه تكون الدنيا ولا دافنها ما تشرب تارك الصلاة الدنيا كلها ولذلك الدنيا نظرك إسلام وحل لودي ديهي شرع إسلام كإن لقول قالوا حكمه ضد بدن باربير يسين نوران أن دونني إلى ألا عابدان ولكم في القصاص حياة إذا القصاص هو النور الدنيا آخره مركز الصلاة أن كنت دالو ضدك الصلاة فضيسان أيو أنو أن كمده والصلاة أن كنت دالو يا الأحب إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة المها قوين هذا الشيكتا والصلاة أتكتك قال لموي إذا كان قارب ضدك حيك عبسنا إلى دهان قفك تارك الصلاة كأوا قال أوابا كم إن بين الرجل وبين الشرك هذا التفاصيل هلا قالوا ولي ما تكن المياه ما تكذا مرة ما تكذا تعال سكوا إماضو
laakiin horta lafdiga sharciga isticmaal adigu oo waxaad dhadaa qofka taariku salaadka ah waa gaal maxaa u daliila inna bayna arrajuli wa bayna ashirki waalkufri wa nabi sallallahu alayhi wasallam yacni ninka qofka iyo shirkiga iyo gaalnimada shayga kale ee kale xijaabi kara waa tarku salaa salaada inuu ka tago unbaa gaalnimada ka ilaalin karta unbaa inuusan gaalnimo ku dhicin hadduuba salaad ka tago maa salakakum fii saqar maxaa idin geliyey naarta la yidhaahda saqara qaaluu lam nakun min almusalliin ma aanan tukan jirin ayagaa yidhi waylun yowmaidin lilmukadibiin wa idaa qiila lahum irkacuu la yarkacuun warukuuca oo dadka la tukada oo tukada marka la dhaho maya may tukan jirin waylun yowmaidin lilmukadibiin xadiidka 84 can jaabir bni cabdillaah radia allahu tacaala canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam qaal yubcathu kullu cabdin calaa maa maata calayh rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baa soo saaray fii saxiixih min xadiidi jaabir bni cabdillaah jaabir wuxuu leeyahay nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam aan ku xusuusiye ma xusuusataa inaan hore oga ballannay markii nabiga magaciisa la sheegay inaad ku sallido calayhi asalaatu wassalaam ma ilowday waan islaahi maada iloobin laakiin wadakir fa ina adikraa tanfacu almu'miniin xusuusinta waan isku leenahay mar walbaba jaabir wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala alla alay salam yubcathu waa la soo saari waa dhimasho kadib kullu cabdin qof walba calaa maa maata calayhi baa lagu soo saari qof walba wuxuu ku dhintay baa lagu soo saari waa xadiid xanuun badan haddana farxad badan xadiidku waa xanuun badan yahay haddana waa farax badan yahay yubcathu kullu cabdin addoon la arkaaye maalinta markuu qabriga ka soo baxayaaye waxaa la soo saarayaa oo lagu soo saarayaa calaa maa maata calayhi wuxuu ku dul dhintay asagoo ah qofkii asagoo khamre cabaya dhintay qofkii asaga oo mukhadiraad isticmaalaya dhintay qofkii asagoo mujaahid oo dhiigku ka daadanaya dhintay qofka asaga oo laa ilaaha ila allah kelimada u dambaysa ku dhintay qofka asagoo zinaysanaya dhintay qofka asagoo khamre cabaya dhintay qofka asagoo dhagaa heese ugu jiraan dhintay qofka asagoo qur'aan dhagaa ugu jiraan dhintay qof walba wuxuu ku dhintay baa maalinta qiyaama lagu soo saaraya dhinaca wanaagga markaad ka fiiriso sulaxada iyo dadka ilaahay waafajiyey waa wax lagu farxo wey qofka xaajiga ah ee asagoo xajka jooga dhinta yaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu dilo shuhadaa inuu nagu dilo annaga oo xujay ah tabaaraka wa tacaala waxaan mar walba qalbigayga aada ugu weyn sheekh maxamed rashaad raximahu llah waxaan u rajaynaynaa ilaahay baa xisaabinaya qalbigiisa waxa ku jira annagu ma naqaan sida daahirka ee muuqata ilaahay waxaan oga barinaa tabaaraka wa tacaala inuu jannadiisa ku marti qaado maxaa yeelay maalin carafo ah asaga oo madaxiisu waxba saarayn ayuu dhintay saasaana lala soo saari doonaa sida uu nabigu noo sheegay sala allahu alay wasalam qof walba wuxuu ku dhintay ayaa lagu soo saaraya qofka xaajiga ah asaga oo madaxiisa xiiran oo aan madaxa waxba ka saarayn baa la soo saari doonaa oo dhahaya labayk allahumma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata lak wاlmulka laa shariika lak ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulka laa shariika lak kuwaasaan ilaahay oga baraynaa sheekh maxamed rashaad inuu la soo saaray iyo shacru faaruuqa waayo labaduba waxay ku dhinteen meel aada iyo aada u wanaagsan saasaana u rajaynaynaa iyo culummadeenna muslimiinta iyo kuwii shuhadada ahaa ee gacan ka xaqdaran ay dishay oo uu ka mid aha sheekh cabdiqaadir urfaara iyo doctor axmed iyo culummadii muslimiinti oo dhan iyo muslimiinta oo dhan
ducada kolba waxbaan soo xusuusanaya waa intaasoo la aqbalo inaan kala reebo ma doonayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maalinta qiyaamo nagu daro kuwa wanaagga lagu soo saarayo ee uusan nagu darin kuwa xumaanta lagu soo saarayo yubcathu waa la soo saarayaa kullu cabdin adoon la arkaayo calaa maa maata calayhi waxa uu ku dul dhintay asagoo ku sugan ayaa la soo saaraya ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idan dhallinyaradeenna heesaha dhegaysanaysa dhallinyaradeenna mukhadiraadka isticmaalaysa dhallinyaradeenna xumaanta ku jirta waxaa weeye waa in khaatumo xumada looga digaa inay saa ku dhiman karaan ka meeqa ayagoo baabuur wata oo ay heese u saaran yihiin oo waxaan alla iyo rasuul raalli ka ahayn ay ku dhex jiraan gaadhigii la gadoomay khalaas way tageen khatar wey xadiidka 85 waana xadiidka darsigeennan ugu dambeeye عن بعض أزواج النبي وحلق وري صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم حديث كان مسلم باصو ساريا هوانك رسولك صلى الله عليه وسلم هوانك مذآن لقورينيا متكستوها النغتئ هوانك النبي صلى الله عليه وسلم nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa qofka u taga caraafan qofka u taga caraafka waa kuwa wax fala kuwa wax sixra faalalowga sixirlowga kuwa madiidada iyo maxaa la yidhahdaa macshara falaga kuwa isticmaala ayaa la yidhaahdaa wax alla wixii noocaasa ama xidige iyo dayaxa fiiriyo ama dhulka ha hariiqo ama arqaam ha isu geeyo ama jinni ha la shaqaysiiyo shaytaan ama wax madiida la yidhahdo is-ogolaysiin nin iyo xaaskii is-ogolaysiinayo ama maxaa la yidhaha hays nacsiiyo oo ha kala qaado wax alla wixii nooca ku shaqaysta oo dhan baa caraaf la yidhahdaaye qofka u taga oo fasa'alahu can shayin wax weydiiya mujarad intaad u tagto inaad wax weydiiso dada waxaan ii samee lam tuqbal lahu salaatun 40 leyla 40 salaadood lagama aqbalayo lam tuqbal lahu salaatun 40 leyla 40 habeen iyo 40 maalmood ayaan salaada laga aqbalayn waa dembi weyn waxaa kaloo waliba intaa ku daraynaa xadiid kale oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam qofkaa u taga caraafan aw kaahinan oo waxa uu sheegaya rumaysta mooda inuu ku caafimaadayo mooda inuu wax iskaga celin karo mooda inuu ku hormari karaaye faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed sala allah alay slam nebi muxamed diintii lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay waa mas'alo kufrigeeda laga doodayo wey inuu gaal yahay oo mukhrij can ilmilla uu yahay soo ma artaan marka khuraafadana waayahan aad bay u badatay muslimiintana way ku sii badan soomaalidana hadda waxaa la sheegayaaba caqligaaga waa ka badan yahay khatar wey arrintaa waa inay muslimiintu ka baraarugaan qofka inuu u tago kuwaasi gaalnimo wey inuu rumaystana gaalnimo wey salaadiisana 40 beri lama aqbalayo haddaad 40 beri ku dhimato ka war haddana salaada ka tag laguma laha waa inaad tukataa haddana lagama aqbalayo ciqaaban lak man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun 40 leyla ilaahay waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala inuu caqiidada toosan nagu dilo oo caqiidada wanaagsan nagu dilo quluubta uu ka tirtiro dadka la cabsiiyey khuraafadan iyo caraafiintan iyo kahanadan kuwa quluubtooda la cabsiiyey ilaahay inuu soo hanuuniyo qalbigoodana uu ka tirtiro ayaan ilaahay ka barya tabaaraka jalla wacalaa inta aanu kaga kulmayno fadhiga kan xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.